بسم الله قدوميها لبداس كحيقون xildhibaanada labada aqal dhamaantiin waa salaamantihiin runtii qodobka aan rabay inaan ka dhawaajiyo markasta waa marna waxa qaatay Dr. Dufle marna waxaad maraysaa Cabdiqaadir inuu iga qashay marna mar hore la qaatay qodobkan 15aad farqadiisa labaad ayaan ka hadlayaa wax kasta wuxuu xaq u leeyahay arrimaha qof kasta wuxuu xaq u leeyahay amniga qofnimadiisa iyo hantidiisa qofna looma geysan karo qaab kasta oo jirdil ah ama fal bini'aadanimada ka baxsan runtii xildhibaanada sharafta leh jirdilka haweenka lagu soo koobay hadda waxaad u malaysaa jirdilka nooc kasta ayuu u imaan karaa waad aragteen sanadihii hore wariyaal la jirdilayay wariyaha waxa ku dhex jiro haween iyo dhalinyaro ku jirto meeshaas oo haweenka bas lagu soo koobay caruurta iyo dhalinyarada in lagu soo daro ayaa fiicnaan lahayd waxa laga hadlayeen gudniinka fircoon yaa yiri magaca fircooniga inta laga keenay magaca fircooniga ma jiro idinka waa la iska dhahay le fircooniga yaa la soo baxay magacaas yaa keenay ma Soomaaliya laga maqlay ma hooyo gooni ah keentay magacaas oo fircooniga ah meel uu ka imaado ma garanayo fircoonigaas in magaca fircooniga horta naga bedelo gudniinkana ma jiro gabadha jirkeeda in la jarjaro waa xaraan shariicada sheegayso diinta sheegayso ha imaadeen wadaadada ha daliiliyeen markay daliiliyaan ay sharciga ay ku sheegan hal lagu qoro sharci looma hayo oo diiniyan gabadhi in la jarjaro waajibaad ma aha hal laga joojiyo taas tan kale waxa sheegay ilmaha soo rididooda runtii waa xaraan marna wuxuu imaanayaa in lagu badbaadiyo hooyada waxa la yiri qubra oo guddiga goormay ka gaari hooyada way bidig baxaysaa intaan guddi iyada haday miirkeeda ay qabto iyada saxiixanayso tan kale gabdho waxa jiro oo haday sheegaysay walaashay xildhibaanada sheegaysay gabdho uuroow waxaan ku arkay xamarweynahan naag waxa joogto gabadha soo uuroodo ilmaha ka soo rido sharciga ma la geey sharciga ma la waafajiyo hadii sharcigaas wacyi gelin loo sameeynin oo aan hagaajinin runtii ilmo ridooga xataa waa fara badnaanaya waxaad malaysaa sharcigan caruurta iyo haweenka iyo waxaas inay ku soo hoobteen xeerka qoyska jirjir xeerka qoyska ma la sameeyo oo dastuurka lagu soo daro xeerka qoyska oo ayaa gudniinka ilmaha la soo ridaayo faldambiyeedka ka haweenka lagu sameeyay haweenka la jirdilaayo gabadhan oo bil iskeerso 10 cunugay ninkan u haysa furaayo meelay u dacwooto xeerka qoyska ma la sameeyo meelay u dacwooto sharciga u dacwooto in loo sameeyo inay malaha heer qoys malaha waxaad malaysaan ilmahana inay meel ka hadlayaan hooyadan in meel gooni lagu hadalsiinayo waxaad malaysaa qofkii la jirdilaay in gooni meel looga hadlayo gudniinkan waxa malaysaa in meel gooli in la isu keeno hal meel oo heerka qoyska aad ku soo dirtaan dastuurka lagu soo daro oo lagu soo waafajiyo asagoo sida hore aheena la soo jarjaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu erayga aan rabay inaan sheego cunfi aniga cimriga intaan waliga cunfi ma maqlin waxaan rabaa aniga wadan waqooyi in looga hadli doono oo maleena erayga cunfiga anaga reer koonfureedana erayga cunfiga waa nagu cusub yahay dastuurkana ku argo ugu cusub yahay haya qore marka eraygan cunfiga haddaan qaamuuska haddaan fiiri waa carabi haddaan qaamuuska u galayna waxaan arkay nin xaaskiisii jirdilaayo oo caruurtiisa qaraacayo oo suxun u qaraacayaan arkay marka erayga cunfiga meeshaas ku imaado marka aniga waxaan dhihi lahaa gacan ka hadal gaf waa gacan ka hadal lagu bedelo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh